magaalada Melbourne ee wadanka Australia waxaa maanta isugu soo baxay boqolaal dad oo cambaareynayay dagaalkii 11 maalmood qaatay ee ka dhacay Gaza. dadka banaanbaxa dhigay waxaa kamid ah jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne oo iyagu calanka Falastiin lulayay. wariyaha iyaga inooga soo warrama qaarada Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan inoo soo diray. إسرائيل هكسو بحدو غزة iyo Falastiin ayay cod dheer ay ugu muujiyeen taageeradooda boqolaal kan qof oo maanta isugu yimid bartamaha magaalada Melbourne oo ay ku jireen qaar kamid ah Soomaalida degan magaaladan. Masjidul Aqsa waxaanu rabnaa inuu xor ahaado ayay yiraahdeen. dibadbaxayaashan ayaa loo xiray wadooyinka soo gala bartamaha magaalada. socodkoodii dheeraa ayay markii dambe ay ku dhameeyeen mudaharaadkooda nabadeed xarunta baarlamaanka gobolka Victoria. mudaharaadkan ayaa qayb ka ah kuwa ay bulshooyinka ku nool caalamka qaarkood ay kaga soo horjeedaan weerarada labada dhinac ay isku weedaarsanayaan, kuwaas oo ay ku dhintaan dad aan waxba galabsan ee ku nool Falastiin iyo Israa'iil.